السلام عليكم saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena caafimaadka maanta waxaan uga hadli doonaa ciwaan la magac baxay cudurrada faafa oo aan uga hadli doono habka ay u gudbaan iyo sida looga hortagi karo adduunkan aan ku noolnahay waxa ka jira cudurro aad u fara badan kuwaas oo keena halis caafimaad darro saameyn ku yeesha nolosha qofka ilaa heer dhimasho cudurradaas haddii aan la xakameyn ama aan laga hortagin bulshada waxay ku keenaan isbeddello aad u fara badan sida tirada bulshada oo yaraata cudurrada oo ku bata dumarkii iyo ilmihii oo dhamaada iyo waliba wax soo saarka oo yaraada haddaba guud ahaan cudurrada waxaa loo kala qaadaa laba qaybood oo waaweyn kuwa faafa iyo kuwa aan faafin cudurrada faafa waxaa keena ama sababa ilma aragtayaal sida bakteeriyada fayruska iyo waliba kuwa kale fara badan habka la iskugu gudbiyo cudurrada faafa kow taabashada waxaana ku gudbaa isnadaamiska iyo cambaarta iyo waliba kuwa kale la mid ah dhiig shubista dhiigga waxaa ku gudba dhammaan cudurrada ku dhaca dhiigga iyo waliba cudurrada lagu gudbiyo dheecaanka sida AIDS-ka cagaarshowga iyo kuwa la midka ah sidoo kale waxaa lagu gudbin karaa cudurrada oo dadka isugu gudbin karaan galmada cudurrada galmada ku gudba ee halista waxaa ka mid ah jabtada waraabowga iyo kuwa kale aad u fara badan xayawaanku wuxuu soo gudbiyaa cudurro aad halis u ah oo u badan kuwa fayruska iyo waliba bakteeriyada waxaana ka mid ah fayruska loo yaqaano raabiyada ama xanuunka loo yaqaano raabiyada sidoo kale waxaa ka mid ah cudurrada bakteeriyada sida bovine TB ama qaaxada loo yaqaano bovine ee laga qaado xoolaha hawada waxaa lagu kala gudbiyaa sidoo kale cudurrada sida qaaxada jadeecada xiiqdheerta iyo kuwa kale oo la mid ah haddaba la dagaalanka cudurrada faafa waxaa kow ka ah ka hortag haddii laga hortago cudurka wuxuu yareynayaa baaxadii iyo waliba dhibaatadii uu geysan lahaa waxayna noqonaysaa bulshadaasi mid caafimaad qabta xakameynta cudurrada waxaa qayb weyn ka qaadan kara dhakhaatiirta bulshada xukuumadda iyo dhammaan noocyada kala duwan ee shacabka waad mahadsantihiin cabdullaahi idin leh bulsho caafimaad qabta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu